ay farxadii iyo khayraanta lama qiyaas karo sababtoo ah waxa laga gudbay xilliyada hore oo ahaa farmuuqashada macnaha hebel odayaal iskeena jiri kan waa xildhibaan kan waa xildhibaan oday ay keena jireen baa laga baxay hadii macnaha la dhihi lahaa alla soo farmuuqo sidii hore beel aan lagu keenay la dhihi lahaa anaka ma soo dhax muuqdeen sababtoo ah beelna ku milihi xisana ku milihi oo dad waxaan iska barakac ku yimid sidaas awgeed marka waxaan aad iyo aad macnaha u bogaadinayaa hawshan bilaabatay oo macnaha doorashada qof iyo cod ah inay sii socoto la sii xoojiyo dad ani ila mid ah oo joogan dunida way badan yihiin oo ani ugu dayana karo oo macnaha iska niyo jabsan waxaan leeyahay dadka ayagana fariin ban u diray waxaan leeyahay macnaha haniyo jabin nolosha laga niyo jabo mar uma maalinta soo galaysa ee qof walba hasamar aan leeyahay farxadana lama qiyaas karo meesha اللهم صل على سيدنا محمد صلاة في STN قردو ولو حين جونا قردو نسيب مناك دولة وصعق وكل اللي مانتي اللبان كترسل واحد ديجانكا عندنا قردو ومحسن عبد الله حاج عبدي محسن ومقع جواهينا إن شاء الله تعالى محسن يا واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم لما صحفة ونفسنا أدبا السلامية محسن nin ka soo jeedo xagga iyo qalaafe ku yimid halkan barakac kana helay xibintaasoo ah matalaad xibintaasoo ah xildhibaan golaha deegaanta ah kuna matalo qoomiyad barakaca kuna sugan qardo waxaana ka soo baxay kaamam isku jiro 6 kaam خاصة هويكيجن وحاوية كام شبيلة. كام شبيلة قرنوا ومية. ها. محسن ما شاء الله ما كم يتهي برك عياشة مجالنا قرنوا. بعد كم يتهي وهذا الدجاج دجاج قرنوا كبيري. ما شاء الله نظام كي حزبية بدن بنتلان فائدوينك بدن أول رأي كم يتهي. صح. وحافلين إن شاء الله تعالى قوة أديو كان يصبح قبل صباحان. أدو رجلينا. ما حد أنت مركي أقول يستي أطفال صباح دي. يعني قول لي فكر كذا. والله horta awalan alla baan hadda iska leh dambana waxaan ku mahadinaynaa madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani asaga soo noo siiyay fursad kaararkaas oo macnaha qofna lagu dooran karo adagna lagu dooran karo qofna ku dooran kartid kaarasha kadib waxaan in muddo ah ku shaqeynay jiray معلم بان هنجري معلم دكسي قرت معناها أن مغلي معلم دكسي قرآن إياه سكول بان هنجري تجرب هلي عن مغل مسكار كان لك يعني كام كان لك يعني لده معناها كار نوع باي ماذي كار كاسو معناها مثلا لو عذين الدونه مر لو عذين الدونه قفك هاستنا لو عذين كرو كارش مركي ماذا المركاني جواحة قالي دماعي سوء ذك على نولا هاي نولش شو اسكه سيسو sidegan nolosha ay ku nool yihiin nolol iska qaraban ay tahay taas oo dadkaas u baahan gargaar dhanka waxbarasho iyo caafimaad iyo hooy intaba u baahan dadka markay macnaha hawshii ay maqleen marka aniga oo qof kaliya oo soo akhristay qoomiyada ma joogta aniga ahaa dadka kala iska xamaalata ah ay u badan yihiin dad carpenter oo iska kan guriyaha dhiso fundiyalka waxana iska badan yihiin marka waxaan tashtay waladintii ardada aan u hayay baan hay maadaama hawshan ay jirto anaka aan baraka inay faa'iido ay noo tahay laga yaabo ilaahay noo qadare bal dadkii noo imaada dil aan la galno sana hadal aan la galno sida macnaha ay nooga aqbalaan xibin inaan ku darsano si aan uga codeyno dadka ayaga ah baatiga macnaha noocis noqdaba aan uga codeyno ayagana macnaha aan codkeena u siino dambana dadka meesha jooga sida badan waxa gacan qaban jiray dawladda oo macnaha Saciid Cabdullaahi Dani u yahay madaxweynaha asaga ayaa macnaha wax siin jiray biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada dawladda ayaa macnaha qaabilsaneed maadaama taageeraha iyo wax walba dhankaas aan ka haysanay marka waxaan isdhaxnay dawladda aan ku beerno si anaga hadhow caawimaad aan uga helno magacan ma saamaxana macnaha aan ku heli karno hadal fiican masana qiimeyn fiican aan ku heli karno sida awgeed markii naloo imaaday ay noo yimideen dawladda baa fasal nagu soo hormartay dambana oo u sheeganay cabashada ayaan u sheeganay way na aqbaleen maadaama aan dhahnay waxaan dhahnay qof baa noo taagan xarabna xiban
xibintaas oo xildhibaanimo ah inay nagula qadariyo annagana sida macnaha codkan aan ku siino wayna ogolaadeen si iyada macnaha ururka dawladda aan ugu biirnay oo aan ku biirnay aan ka habaan ka soo baxay wallahi farxadii iyo khayraanta lama qiyaas karo sababtoo ah waxaa laga gudbay xilliyihii hore oo ahaa farmuuqashada macnaha hebel odayaal iskeeni jiray kan waa xildhibaan oday ay keeni jireen baa laga baxay haddii macnaha la dhihi lahaa alla soo farmuuqo sidii hore beel aan lagu keenay la dhihi lahaa anaka ma soo dhex muuqdeen sababtoo ah beelna kuma lihi xisana kuma lihi oo dad waxaan iska barakac ku yimid sidaas awgeed marka waxaan aad iyo aad macnaha u bogaadinayaa hawshan hadda bilaabatay oo macnaha doorashada qof iyo cod ah inay sii socoto la sii xoojiyo dad ani ila mid ah oo joogan dunida way badan yihiin oo ani ugu dayana karo oo macnaha iska niyo jabsan waxaan leeyahay dadka ayagana fariin ban u diraya waxaan leeyahay macnaha haniyo jabin nolosha laga niyo jabo mar uma maalintada soo galaysaa qof walba hasamar aan leeyahay farxadana lama qiyaas karo meesha ay taagan tahay aad baa u mahadsantahay ما شاء الله المحسن عبد الله حاجي waxaad sheegtay inaad tahay barakacyaasha degmada Qardho inaad ka soo baxday kaam Shabeelle Qardho doorashooyinkii qof iyo cod waxaad kaloo sheegtay inaad ka tirsan tahay ururka KAA inaad ka tirsan tahay oo talada dalka haya wax qabad ma la kulantay markii aad ku guuleysay doorashada wax qabad ma la kulantay la caqabado iska badneed sababtoo ah maadaama ay badnaayeen ururada tartamayay kaamka aan joogay xitaa 6 kaam bay ahaayeen laakiin kaamka aan ka soo baxay uu qaybsanaa macnaha dhowr meel intii hore waa isku duubnaayeen laakiin doorashada markii soo dhawaatay dadkii waxaan dareemay inay kala jabeen anigoo macnaha xilliyihii dambe adiga murugo zaid ay dareemay dambana bilaabay inay macnaha marba irta qaraaco albaaba qaraaco xaafadda dadka uga tago dhaho codkiina oo u baahanahay anigoo ah macalinkiina ardada ah shilana idin soo bixiyay ardayna macnaha wax bareeyay maanta waxaan u baahanahay codkiina inay ugu kaalmeysaan cabashooyinka aan la kulmay waxaa ka mid ahaa dad inay isku dagaaleen oo daradii ay isku dagaaleen wala dhashay isqabo ay kala tagaan gabadhina ay tiraahdo oo noo codeynaya ninkan asdaas dhaho oo ma codeyn kartid hadda codeyso adiga u baxan adiga u galan oo sas gabar iyo naag in ninkeeda ay ku kala tagaan wiil iyo abis ay ku kala baqdaan oo isku dagaalaan oo dadkii ilaa ay saacadan wali dadka qaarkood ay kala taagan yihiin la ajli aniga iga soo gaarin xaliskooda iyo wanaagoodani kulay caqabada iga soo gaartay lama xalin karo dad badan baa macnaha isku dilay oo gacan u soo qaaday daawoontoodii kharashaadkooda la galay laakiin ka jir ahaan aniga wax igama soo gaarin laakiin ka maskax ahaan iyo kan ahaan ba ehelkii isku galeen taas dhankaas waxa iga soo gaarin محسن صار نص على دور شقة في عد كنت الآن ويكمل عبد الحمد لله رب العالمين يعني عندنا وسيس عندهم بإذن الله صح maxaa kula talinaysaa dadka kale oo barakacayaasha oo jooga Puntland hadda oo mahadsantahay ariga horta ugu horeeyay aan ku farxno sidii barakaca u nahnay maalinkii soo galnay magacaanad aan helnay ku dhawaaqay madaxweynaha Sida Abdullaahi Dani Allah asuna barakeeyo wuxuu yiri ma jiro barakac saacadan wixii ka dambeeyo waxay tihiin dad muwaadiniin ah maadaama ay tihiin dad xiban ku leh degmada مثلا كله marka meeshaas waxa ku tagay ugu dhahay macnaha kalimadii ahayd ee barakac ahayd maadaama wali ariga uu heri la yahay anagana aan ku farxsanahay ariga barakac ah maadaama aan ku helnay magac matalaad qiimeen iyo casuumad badan aan ku helnay wali macnaha nolo hayo abaalkan aan uga hayno dawladda walaahi dadku waxaan kula talin lahaa barakacayaasha kale inay neejibin meeshii joogaanba waxbarashadii wax bartani hore u sii socdo كي سكيلز لو خبرت اللي احنا معناها خبرتي سو كشقيستو كي معناها همي اي هناس اوغ جيرو ان كسو بيرو ururada masana doorashooyinka ku soo biiro in sabana manaha raba inay ka helaan xiban ka helaan mataad rabana way furan tahay waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan leeyahay alaniyo jiban ku soo socdo meesha aad u mahadsantihiin madaxweynaha Puntland Sida Abdullaahi Dani maxaa kala halka loo jeedinaysaa uu ku daawanaya hadda madaxweyne Sida Abdullaahi Dani aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol la waxaan ugu abaal gud garan mayno abaalkiisna ilaaha guud garaa waxaan leenahay meeshuu nageeyay maqaamka uu nageeyay Allah geeyo Allah ka jaaziyo maqaamka sare jannada Allah ugu abaal mariyo wax kale hadda uu dhigino malaha cadaaladda iyo sinaanta as wadana waxa leeyahay Allah ku garab galo
خوش أسودنا هروق الصعو حتى هنا عبسين إنجليزية وشيش كفرادك وبقينين تصدقنا أدبنا وفرح سنة وانه بوجادنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.